tan anigii oo shala ku teesaday booydo baba ay guriga iga baxo iga soo saartay gurigiisa nin naag qabana waxaas tama badno inuu sida ula dhaqmo diintuna ma qabto gabar masaakiina ninta hadduu tibadha qabo inuu sida ula dhaqmo guriga ka saarto gurigana waa iga saartaa diinta muslimka ma qabto inuu guriga iga saarto anigoo qof dumara weliba soo ifurin oo ku furaa intay dhaadana ifuri laayahay marka waxaan ku dhahaa walaalow dee warkaygan aamin nintaan ani been baasaa been sheegaan aan run sheegaa hadda waxaan ku dhahdaa maa dhaa gabadha madaxeeda sii maadaama gurigaadii aad ka soo saartay meel kale aade ay leedahay hortaadii aad ka soo saartay gabadha fur madaxeeda sii dhahaa iri adiga walaaltii asaga waa isla hadleen walaaltii nintii maba ifurinbo walaalteene fur ilaa ma dhahayo ani tuma laho waayo ani naagta waa fura ma dhahoobo wuxuu dhahoobaale naagta waa idhibtay macnaha ma gurigana ayada tabaxayso aan xoog uga saarin marta ani fur ma dhihi tiri asagoo ku furaa doodhaa diyaar markaas fur waa dhahaa laakiin asigiiba inaa wax ka hadlaysay oo xanaaqsay oo ii sheegaba laakiin naagtii fur aan ilaa ma dhihi tiri walaalka saasoo iigu jawaabay waxaan ku dhaha ninta guriga iga saaraa dhaa walaalkii aan meelaha aadamaha qaan ninta nin oo iqaabo ahaa dantii daruuftaa shala u mehersaday ayaa meesha yaalaa dhaha gurigoona iga soo saaraa dhahay ani been ma sheegaya qof aan guri iga saarin oo iga saara ma dhahaya iri oo iga saaraa iri guriga ma fahamta oo iga soo saaray intuu ii qabiyo inta maalin aan ku mehersanayna lacag ma isiinayn baa dhahay ma fahmay lacag ma isiinayn marka waxaan dhahay walaal ani been ma ku sheegayo marka waxaan dhahay hadduu xataa dhihi waayaa iri waa furaa hadduu dhihi waayo xataa adiga ma dhaadidaa iri gabadha fur maadaama gabadha guriga iga soo saaray ku dhoosaaye qolta iga soo saaray ku leedaaye ma fur dhaadidaa iri haddii dee maaragtay adiga dee gabadha aadaan rabtane gurigaada ku celi oo gabadha maaragtay dhibta ta dhaaf ha dhibin haddii aad rabin gabadha dee fur walaalow gabadha waa kaa cabanaysaa waxay ku leedahay jid baan taaganaa ninta guriga iga soo saaray qolta iga soo saaree walaalkii intaasuu awoodi waaye inuu ninta iigu sheego oo dhibteeda iigu sheego nintina waxyaalo iigu sameeyey wuu intiray inuu waa furaa dhahay inuu waa ku furaa oo idhaw si bareefad ii dhahay walaalkay hortiisa kumuu dhihin wuu tu intiray wuxuu dhahay saas ma dhihin inuu guriga iga saarana wuu tu intiray beenta taasna wuu qariyey inuu guriga iga saarana wuu qariyey wuxuu dhahay guriga ayadaa ka soo baxday soomaali maxamed ee rafaadtaasaa qabaa kadibna ani bastaa iska soo raacay walaalta iyo nintiin waa ifuri waayey gurigana waa iga soo saartay waa taasaa dhartii alaabteedii waa taasaa boorsadeedii waa taas boorsadeedii talawaatan meel aada ma haysto maxaa dhahay maanta waxaa is dhahay nintaas istala joog ninta nisaan oo iyaalo ii xumeeyey maxaa dhahay walaaltina nintii madaxeedii waa iiga qaadi waayey martii dambe nintii buu iga tegiyey martuu basta i saaran nintii waa iga tegiyey mana i furin gurigina waa iga soo saartay kadibna walaalkii baa isoo wacay walaalkii martuu isoo wacay oo si bareefad ii soo wacay waxaan ku dhaha walaalow adi macaan oo maxaa saas ii yeelay walaalkii aad tahay waa ila dhalatay maxaa saa ii yeelay baan ku dhaha nintii guriga oo iga saaraan ku dhahee sidaan taaganaan ku yidhi ninta maxaa u dhihi weydaa iri gabadha ii fur gabadhii shala daruufee kuu raacday waxa la-aan bay kuu mehersatay gurigaaday kuula joogta bilaash anaa kuu meheriyey maanta gabadhii haddaan nacdo madaxeeda sii maxaa u dhihi waysaa iri ila guriga iga saaray kuleeda maxaa u dhihi waysaa iri maxaa u dhahaa oo idhah walaalkii saas ma dhahayuu yidhi midda tale wuxuu yidhi maalin walba adi nin maa ii teensanay maalin walba nin intaa ii teestay uu meheri ii dhahdo ma haddana i leedaha nintii waa ifuroobaa iga furmaa i leedaha walaalkii saas i dhahaya markaasaa intaan qoslaan ku yidhi aboo maxaa saas iila hadlaya baa dhahay maanta sharaftuuma ahana idhahdo ila dhalata haddaa aniga ma ninka haddaa iga furku dhahaa iri ninka asagaa isku tee bedelay asaa gurigiisa iga saarte shalana markaa igu meheri ku dhahayo aniga asa ninta waa isku wanaagsaneenaa iri waa isku wanaagsaneen laakiin maanta markuu gurigiisa iga soo saaranayo oo iga baxi leeyahay iga fur saasaa kuu dhahaa dhah qofta hadduu isbedelo ebelba waa laysta furayaa iri marka ay leedahay iri maalin walba ninaa ii teestay haddana waa iga fura ay dhahdaa igu dara ay dhahdaa haddana iga fura ay dhahdaa marka ay leedahay iri naagaha qaar waxay sameeyaan baa iri walaalkood ninta maba u teesadaanba ayatoo uurra leh bala arkaa iri naagaha qaar baa iri ayatoo xaamilaa oo uur leh oo ninta qudbasiro ku meersato uur leh gabadhii basaaba la arkaa baa dhah laakiin ani si sharaf leh inta kuu soo wacaan ku dhahaa baa iri aboobow nintaan isii taasuna ma xumaa iri hadduu nintii aad fahmi weynina si sharaf leh inta kuu soo waco aan ku dhahaa baa iri aboobow nintii waa ifuraa waa ku furaa uu leehee iga fur intaasaa culays maa u artoosaa baa iri ilaa ani mootahay jidkaas haddaa inta ka meersada anoo uur lahay arti leedahay taaga darnaa leede kadib
walaaltii markii dambe wuxuu igu yiri waa i ceebaysay walaaltii ay dhahaya neefad oo iula hadlaayay bastaa saarnaa nintina dee turigiisa u noqday nintii martaa basta fuulay turigiisa u noqdo oo i furi waayeen turigina waa iga soo saartay oo xoog buu iga soo saaray boorsadeedu banaanta iigu soo laaday nintii ii qabo waaye walaaltana wuxuu igu yiri naftaa ii keenta maalin walba nin iga fura ay leedahay iyo nin igu dar ninta martaa kuu dara ma dhaqanaysa haddana iga fura ay leedahay maskaxda iga wareerisay maxaa la dhahaye hadda kadib haba ishaaganba walaaltaana ma ihi walaaltii asaasi dhaha walaaltii baa asaasi dhahay nintana ifur waa ku furaa way dhahay aan ku balannay walaalta martaa u wacana naagta gabadhi waa furo ma dhihin walaaltiina martaa ninta u dhiibo ninta igama furin oo walaaltii aan nifkeyga u sheegtaan tunaani boorsadeeda jibtee taalaa inuu nintaan i furaa rabaa iga fur marka ani maxaa sameeyaa soomaaliya waa dhibtooda dhibaatadaas ay u dhacday walaaltii aabahee dhalan wuxuu igu dhahay ha i sheeganin ani adeeta kadib isma sheegano aniga lifeka soo fadhiisaa walaaltii baa saasi dhahay wuxuu igu yiri lifeka soo fadhiisanayaa reerkayga iyo aabahe inuu ku dhalan anaa taa saaray waa soo fadhiisanayaa waxaana leeyahay dhahay wax walbana waa tacadeenaa dhahay inaan aniga ay la dhalanin oo walaasha ay ahayn mar dambana ay soo wacan boori hadda walaaltaas oo sasi ila hadlaayo oo sasi dhahaayo shala wiiltaan markaa la jooday intuu i soo wacayo yiri aan kuu meeriyo sharaf daraa ii keenin ninta aan la joogta aan kuu meeriyo yiri haddaa isla joogtiin kuu shirtaa ma rabe hadda waa walaaltii dhahaya ee asaga i soo raadsanaya maantana saasoo iila hadle inuu igu dhaho aniga adi isma sheegano reerkaygii aabahay inuu ku dhalan anaa taa saaray lifena waa soo fadhiisana inaa ila dhalanna waa caddayna hadda waa walaaltii saasoo iila hadla maanta ninkii i qabane isagoo i furin oo turigiisa iga soo saaray iga baxdo igu yiri haddii tale waa ku dila haddii tale boolisaan ku wacaa saasoo igu dhaab boorsadeediina meeshaas oo ii soo dhigay marka soomaali maxamedey aniga gabar soomaaliyeeda mii qabataa in saas leela dhaqmo saas kunimada le in leula dhaqmo insaanimadu ma ku jirtaa in saas leula dhaqmo aniga in saas leula dhaqmo insaanimada iyo bilaadanimada ma ku jirtaa soomaali maxamedey ma ku jirtaa in saas leula dhaqmo ilaaha idinku dhaashee ninkiina inuu guriga iga soo saaro oo boorsadeeda meeshaas ii soo dhigo oo boorsadeeda meesha ii soo dhigo oo guriga iga soo saaro gurigiisa iga soo saarta asoo i qabo i furin soomaali maxamedey walaalkayga aabahay dhalan oo yiraaho reerkayga anaa taa saaray aneen isheegana hana sheegan oo i dhaho oo igu damiyo walaalkii maanta shala ninta igu meeri aan ku dhahay ee igu dara aan ku dhahay igu daray maanta nintii markaa iraboogo boorsadeediiboo nintii guriga iga soo saaray qolkiisa iga soo saartay inuu i furo rabaa igala hadal haddaad gabadha rabtana ay fur haddaad gabadha nacdana fur haddaad gabadha rabtana dhaqawaryaa gabadha guriga ha ka soo saarin qolka ha ka soo saarin gabadha waa qof dumara xaqay kuu leedaha shalay adaa meersaday gabadha ha ka soo saarin guriga intuu dhihi lahaa oo ninka islaamad igala hadli lahaa wuxuu igu abaalkuda inuu yidhaha isheeganin walaaltaana ma ihi hana isheeganin nintii i qabay oo nintii i meersaday i qabane boorsadeedii oo ii soo saaray waatana boorsadeedii oo banaanta iigu soo saaray iga baxo igu yiri marka soomaaliya ilaaha idinku dhaarshe dhibaatadaas igu dhacda maanta dhibaatadaas igu dhacday ee nintii i qabay ii teestay asoo i furin gurigiisa iga soo saaray boorsadeediina ay saas tahay ilaa ani mootaa naagi oo istala nooleed mii shala duur xalaalaana waa meersaday anaga soomaali maxamedey anaga dad islaanaana dad muslimaana anaga soomaaliya anaga dad muslinaanahay dee haddaa aniga maaragtay isqaabinaayo oo diinta aan ta baxaayo islaamta aan ta baxaynaa laga sheego diinta islaamta haddaa ta baxaayo oo aniga aan isqaabinaayo oo taaladaas aan raacaayo halay sheego haddii kale ninkaas igala hadla haddii islaanimo jirto oo muslimnimo jirto igala hadla ninkaas ani gurigeyga waa iga soo saarayey asoo i qabo oo i mehersada maadaama dad soomaaliyeed nahay dad islaam aa nahay dad muslim aa nahay asoo i qabo guriga iga soo saarta oo i furin marka haddii ninkaas ha laygala hadlo gurigiisa waaba iga soo saartee alla waco oo hala dhaho anaga dad muslim aa nahay gabadhi waa gabar soomaaliyeed shala diinta islaamta ku mehersatay walaalow maantana ista fasax ista fur gurigaadi waa ka soo saaratay gabadhay haddaa nacda fur
saasaa la dhaho reerkiisa ninkaas ciddiisa iyo reerihiisa hadday daawanayaan daarood ninkaas saasaa dhahaan weliba majeerteenta saasaa dhahaan ama hooyadiisa ama fibilkiisa hadday daawanayaan ninkaas la hadla madaxayga ha isiiyo ilaa aniga gabar muslima ahay maanta waa awoodaa inaan inta dharta dhigto dhaqan taalada dhaqantooda aan raaco aan maaragtay hayacda iska noqdo saaraba ha u dhaqmo asagoo nini qaba nintana aan mehersado waa awoodaa ma fahmi laakiin aniga hadda waa idiin sheegay hadhow haddaan ninkan u tago ima dhihi tartiin istaayilay gabar muslim ma tiid miya gabar soomaaliyeed ma tiid miya maxaa ninaaba tuqabeen nintaantan xaa u tagta hadhow ha idhihina hadhow inta ay dhihi lahaadeen hadda maanta soomaali maxamed ay tarabi siiya ani markaa waaye cid kaloo tarabi siiso ayaa maanta miidiyaa soo fadhiistay dhibaatadeedana idiin sheegtay dadka oo muslimnimada ay ku weyn tahay oo soomaalinimada ay ku weyn tahay oo diinta islaamka ay ku weyn tahay oo muslim ninkaas hala hadlaan lambarkiisa ha raadiyaan anaa idin siinaa lambarkiisa la hadla oo waxaa dhahday gabadhi duriga haddaa ta saartay waa gabar soomaaliyeed haddana gabaraa mehersatay oo qabtay eede xaqay kuu lahayd gabadhay haddaa duriga ta saaratay waraaqadeeda sii fur gabadha waraaqadeeda sii durigaaba ta saaratay maxaa ta qabtaa gabadha fur hadhow ninkan haddee raacdo waa qabaa iyo waa qaban iyo hadhihin saas dhaha meel iga saara ninta Sahli Abai waa ku salaamay. taa qaada baa sheete Abai, I'm so sorry. Wallahi beerka ay xanuujisay aad iyo aad aan uga xumahay. Ani hadda wiilkaas nambarkiisa ma hayo laakiin profilkiisaan gelayaa snapkanaan ka waxaan isku dayaa waxaas wax aan raalli ka nahay maaha wax caadadeena iyo dhaqankeena ahna maaha Soomaali haddaan nahay weliba beeshu sheeganaya anoo ka mid ah yacni marka anaa wacaya hadda hab inuu iga qabto Abai isdeji macaane isdeji oo ku baraya wallahi beerka ay xanuujisay maanta hadda baaya ninku qabo oo edeb daran yahay waxaas diin akhlaaq maaha walaashay la hadal naagtaan haddaan nacdo oo qoltaada ta saarata maxay ku banaysa diinta inaaba waa ku furanayaa tiraade oo saas ay tahay wada baxdo laakiin gabadhi kufuraaya daalada oo madaxeeda xoog ku haysanayso qolteedana hataso guriga tuulo joogta maxay ta soo saarta walaal ma dhaqan ba waxaas dhaqanna maaha akhlaaqna maaha waxaas dayuusnimo waaye shaaric muu kugu daynaya waxaas darro waa Abai tii ila dhashtay walaaltii oo aabbaha dhalay oo nintii shalay igu meeriyo shiiqa sheeganayna ha isoo sheegan wax ugu dhahay tashaatee waa salaamaya saanin igu teensanaysay istaahil oo salaamaya Abai oo dhawahay istaahil Abai waa laga khaldan yahay waxaas hadda inuu sameeyana aad iyo aad waa khalad goorma isku keen dambeysay goorma ka timi